hal abuur ganacsi waa qof bartay ama ku dhashay heybada gaar ah sida maamulida, hal abuurnimada, kartida iyo doonitaanka inuu fikirkiisa dadka ka dhaadhiciyo oo u bedelo ganacsi jira. Warbixintan waxaa diiradda ku saarayna taariikhda hal abuurka hantiilaha ah ee loo diiday shaqooyinka. One of the most valued persons in the world, Jack Ma. Mr. Jack Ma waa nin hantiilaha oo haysta lacag balaayiin dollar ahi. Dalka Shiinaha ayuuna u dhashay, waxauna ka mid yahay dadka ku guuleystay dhinaca hal abuurka ganacsiga. waxa uu maamulo ka yahay isla markaana milkiyadeedu uu leeyahay shirkadda la yiraahdo Alibaba Group Holding Limited oo ah shirkad Shiineys ah oo dhinaca internetka wax ku iibisa. ninka lagu magacaabo Jack Ma waxa uu aasaasay sanadkii 1998 webka la yiraahdo alibaba.com oo ah website ganacsi. wuxuuna u aasaasay si uu u xirto wax soo saarka shirkadaha Shiineyska ah isla markaana iyaga ay kaga faa'iidaan wax soo saarkooda loogana ogaado banaanka. malqabeenka Jack Ma lagu magacaabo mar saxafiga la yiraahdo Charles Ross oo Mareykanka u dhashay uu wareysi siinayay ayaa waxa uu sheegay inuu ku guuldareystay waxyaabo badan inta aanu aasaasin shirkadda uu haatan ka tanaaday ee alibaba.com. waxaana waxyaabaha uu ku guuldareystay uu ka xusay in muddo 3 jeer ah oo imtixaan u galay macad ama college isla markaana uu ku dhacay imtixaankaasi. markii uu ka tagay macadkii ayuu waxa uu shaqo ka doontay booliiska, iyaguna waxa ay ku wargeliyeen in uusan ku fiicneen shaqada ciidanka. asagoo sii wata wareysiga waxa uu yiri aniga iyo dad 24 qofood ayaa shaqo ka raadsanay shirkadda KFC, waxaana dhacday in 23 qof ee kale la aqbalay isla markaana nasiib daro aniga kaliya aan noqday qofkii laga reebay shaqada. I applied for Harvard for 10 times rejected. When KFC came to China, come to my city, 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one guy. inta aanu bilaabin shirkadda uu haatan leeyahay waxaa jirtay in maalmaha ka mid ah isagoo fadhiya meel kafee laga cabo ayaa waxa uu weydiiyay gabar shaqaale ka ahayd ma taqaanaa oo ma maqashay sheekada la magac baxday Alibaba. haa bay tiri oo waa sheeko caan ahi, magacaasna adduunka inta badan waa laga yaqaan. kadib waa uu soo baxay wadada intuu uu soo mariyay ayaa waxa uu la kulmay dad 30 qofood gaaraya kuwaasoo u kala dhashay wadamada Hindiya, Jarmalka, Japan iyo Shiinaha. waxaana uu weydiiyay bal in ay yaqaanaan magaca Alibaba, waxaana ay dhammaantood ugu jawaabeen ha waa maqalnay sheekadaasi. dabadeed waxaa halkaasi uga soo baxday in magaca Alibaba uu yahay magac fudud oo caan ah maadaama uu ganacsiga electronic uu yahay mid caalami ah. haddaba markii uu sameeyay webka caanka ah alibaba.com sanadkii 1998 ayaa waxa uu la kulmay caqabado badan iyadoo 3 sano ugu horeysay uusan wax faa'iido ah aanu helin. waxaana caqabadii ugu weynaa ee ka hor yimid kamid ahaa in aanu hayn qaab uu qarash bixin ku sameeyo, mana jirin wax bangi ah oo isaga la shaqeynayay ama la macaamilayay. laakiin Jack Ma waxa uu go'aansaday inuu sameeyo ama bilaabo barnaamij qarash bixinta ka saacida isla markaana isaga u gaar ah. waxaana uu sameeyay barnaamijka la magac baxay Alipay. maanta 800 milyan oo qof ayaa isticmaala Alipay. Jack Ma oo ah ninka sameeyay webka alibaba.com waa qofka 22aad ee adduunka ugu hodansan ama ugu lacagta badan. hantidiisu waxa ay gaaraysaa 23.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, iyadoo webka alibaba.com uu yahay mid ka mid ah website-yada koowaad ee adduunka ugu caansan. ugu dambeyntii Mr. Jack Ma waxa uu yiri weligaa isdhiibin oo xaquusan. hadday maanta kugu adag tahay biri ayaa ka adag oo ka xun, laakiin biri maalinka ka dambeeya ayaa ku dhalaalaya ama qoraxda ku noqonaysa mid ku iftiinta. taasi waxay ku tusinaysaa in qofka aanu quusan, fursadana ay soo mari doonto mar uun, laakiin isagu aanu isdhiibin, ilaahayna uu tala saarto.